beeraha Soomaaliya iyo dhulkaas oo dhan in la beerto oo maaragtay loo dhoofiyo dalalka caalamka. sidoo kale waxaa ayagana yimid oo maaragtay la kulmay wasiirka howlaha guud iyo guryeynta maalgashadayaal ka socda dalalka Djibouti, Suudaan iyo dalka Turkiga, kuwaas oo iyagana u yimid inay maaragtay ka qayb qaataan maalgashigaas oo ay maalgashtaan dalka Soomaaliya. Horumaradaas oo dhan ayaa socda adduunkana maaragtay waa la isla socdaa oo waxaa la doonayaa in maaragtay la iskhilaafayo Soomaaliyana horumar looma ogola. Taasaa waxay keenaysaa in Axmed Madoobe luuq walba ay u fariistaan reer galbeedkii oo ay yiraahdaan ha taageerin midnimada Soomaaliya, mar walba lugooyo ku samee midnimada Soomaaliya, in ay yimaadaan 11 xildhibaan, in ay yimaadaan saraakiishii militariga, in ay yimaadaan safiiradii Faransiiska iyo Jarmalka iyo Yurubiyaanka oo dhan ay yimaadaan oo ay isku dayayaan inay maaragtay dowladda Soomaaliya majaxaabiyaan. waa maaragtay wax la yaab leh wey. dhanka kale Soomaaliya waxaa ka dhacay bandhig lagu soo bandhigay maalgashiga beeraha iyo wax soo saarka tabaca beeraha, kaasoo maaragtay ka dhacay magaalada Muqdisho oo maaragtay lagu soo bandhigay waxqabadka ay ka qayb galeen hay'adaha maaragtay dowladda iyo waliba kuwa maaragtay dowladda la shaqeeya ee fududeeya arrimaha iibgeynta dalagga Soomaaliya ka soo baxa. waa kana waraysi la yeeshay hay'ad ka mid ah hay'adahaas oo qaabilsan isku xirka ganacsatada beeraleyda iyo dalalka shisheeye. haddii la yiraahdo wax soo saarka beeraha isla markaana hoos u dhigi doon haddii la yiraahdo in ku tiirsanaanta cuntooyinka dibadda nooga yimaado. marka Saris aad ay u faraxsan tahay fursaddan waxa ugu faa'iideysanayaa haddii la yiraahdo inaan la wadaago beeraleyda iyo ganacsatada Soomaaliyeed in systemkan oo digitalka ama maxaa la oo online waxaanu ku sugannahay shirweynaha. marka ugu horeysa aad ugu faraxsanahay in hay'adda Saris oo ka mid ah hay'adaha qaranka gaar ahaan ka shaqeysa qaybta beeraha. marka sanadkan sharaf ay noo tahay sanadkii labaad inaan ka soo qayb galno shirweynaha cuntada iyo beeraha lagu raad raaci doono bacriminta. marka problemkan ama systemkan in systemkan oo digitalka ama maxaa la oo online-ka in lagu diiwaan gelin doono haddii la yiraahdo dhammaan shirkadaha ha noqdaan kuwa dibadda wax ka keeno, kuwa jumlada iibiyo ama kuwa tafaariiqda. marka aad ugu faraxsanahay in maxaa la shirkaddan Saris waxay samaysay digital dalagga abuurka maaragtay seedka lagu soo binayo diiwaan gelin laguna raad raacayo caafimaadka dhirta la beerayo abuurkeeda. wuxuu kale waxay ka sameeyeen oo kale isku xirka inay broker ka noqdaan oo maaragtay shirkadaha Soomaaliya ay ka diiwaan geliyaan dalalka China iyo wadamo kale oo maaragtay daneynaya dalagga Soomaaliya. arrintaas oo ah arrin maaragtay horumar leh oo Soomaaliyana maaragtay ay ka faa'iideysan doonto. waxaa ka qayb galay arrintan wasiiro iyo xildhibaano ayaa waxay ka qayb galeen qalin jabintii ka qalin jabiyaan iraade macadka daraasaadka amniga. ayagana waxay sheegeen inay ka faa'iideen cilmi aad u fara badan oo maaragtay ku soo biiray aqoontooda dowlad ahaaneed. Soomaaliya iyadoo sidaas u halgamaysa oo doonaysa inay ka baxdo wixii hore ayaa lugaha lagu dhagan yahay oo waxaa ku dhagan dalal shisheeye oo doonaya in Soomaaliya aysan horumarin, kuwaas oo mar walba ka shaqeynaya in aysan Soomaaliya heshiin ayagoo isticmaalaya dalalka Imaaraadka iyo Yuhuudda iyo dalka Mareykanka qaar ka mid ah kulligoodna ay maaragtay lugaha ku dhagan yihiin. sida aan la socono Axmed Madoobe iyo ninka la yiraahdo Dani ayaa diidan midnimada dalka Soomaaliya iyo Ciro, kuwaas oo kulligoodna ku xiran dalalka aan soo sheegay. horumarkii ayay ka hor istaageen shacabkoodii. waa kan madaxweyne Dani oo la hadlayay shacabka sheegayana inay magaalooyinkooda qaar ay il ku dhacday oo quraansaar ay u baahan yihiin halkii uu ka qayb gali lahaa horumarka Soomaaliya ka socda.
iyo dhulka carrasanka ay ku taalo xoolaha ku wanaagsan dadka iyo dunyadaba u roon runtii waxay muujinaysaa inay tahay degaan habboon oo la rabo in si wanaagsan loo maalgeliyo ku arko waad ogtihiin wax badan buu ka beddelayaa runtii waad ogtihiin waxaa ku yaalla iskuulaad iyo mashaariic ay dadka qurbaha joogaa wax ka qabteen halkii la soo booqan waayo oo qoysaska raba inay nastaan ama kuwa lamaanaha aqal gala aysan intay ka soo fogaadaan meelaha kale halka dalxiis u soo aadaan la kari waayo oo kuwa Itoobiya jira ay halka soo aadaan waad garan kartaan maalgelintaas wax ay la kulmi karto runtii waxaan annaga halka ugu nimid maanta oo aan u aqbalnay runtii martiqaadkii degaamada nooga yimid waxa ugu muhiimsan inaan reer Bursaaxalax niraahno war isdaba qabta macnaha amni darro iyo maaragtay waxaa ka jirta Puntland haddeertaan dhaqdhaqaaq isqaqabsi ciidan ah taasoo ay kaliftay siyaasadda maaragtay lagu kala ra'yi dugan yahay oo ka jirta Puntland oo qaar dadka ay aaminsan yihiin dowladda federaalka la shaqeeyo iyo midnimada madaxweynaha Puntlandna uu diidan yahay in midnimada iyo wada shaqeynta la sameeyo dowladda lala shaqeeyo sidaa daraaddeed dalka Soomaaliya lugaha ayaa lagu dhagan yahay waxaana ku dhagan kuwa u shaqeeya dalal shisheeye iyo kuwa maaragtay shisheeyaha intaba oo dalkan diidan horumarkiisa Soomaaliyana dadaal ayay waxay ugu jirtaa inay dhaqaaleedana kor u qaado amnigeedana kor u qaado ilaashatana xorriyaddeeda dalnimo Soomaaliya mar walba waxaa maaragtay u yaala inay maaragtay dadka Soomaaliyeed danahooda iyo horumarkooda loo taagnaado laga shaqeeyo oo maaragtay indha gaar ah lagu fiiriyo kuwa u shaqeynaya dalalka shisheeye si loo ogaado qofka shisheeye kalkaalka oo Soomaaliya horumarkeeda diidan iyo qofka Soomaaliya wanaageeda ka shaqeynaya madaxweynaha Soomaaliya hore wuxuu u sheegay in cid walba ay la hadlayaan oo maaragtay gacmo furan ku soo dhaweynayaan mucaaradka oo dhan sidaa daraaddeedna mucaaradkii ay diideen inay maaragtay aqbalaan sharciyada ay soo saareen baarlamaanka federaalka Soomaaliya kaasoo ah baarlamaan ku yimid si sharcina u leh inay soo saaraan sharciyo cusub sharciyo jirana ay maaragtay wax ka bedeli karaan maadaama loo doortay inay ahaadaan sharci dejiyayaal dowladda Soomaaliya maadaama ay ka dhaga adeegeen mucaaradka inay la hadlaan waxay go'aansatay inay hore wado howleeda dalkan ay u adeegto wixii maalgelinaya dhaqaalaha la siin kara maamul goboleedyada la siiyo sidaasna ay ku socoto dowladda Soomaaliya iyo shaqada loo hayo shacabka Soomaaliya hore ugu socoto aan loo xiriirnaa barnaamijka intaasaan kusoo koobaynaa caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Farxaan Ciro barnaamijka noo sheer gareeya like noo iraada follow noo soo iraada YouTube-keena FCTV Soomaaliya YouTube-keena noo subscribe noo saara iyo Facebook-keena FCTV aad iyo aad u mahadsantihiin wanaagsan